أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم وكيلا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصوماليات ميل كسر أدونك دعلدي سكت شوكتان وإذن سلام إياه. aad iyo aad baan idin salaamayaa. maantay waxaan aad uga xumaaday dhibaatadii ku dhacday dabcasar. dadka martida xumeeya, dadka martida dila, dadka martida dhibaateeya. waxaa la dhahaa qoonkii nabi luud miyaa la oran jiray, qoonkii martida wasi jiray, qoonkaasay ahaayeen. dadkii martida xumeeyay, qofka markuu marti kuu yahay oo qariib yahay, masaafir yahay, waa laga ducaystaa. qof masaafir dilaya subxaan allah ma arag. anugu marka horeba albaabkayga waa xiranaya, ha ii soo gelinina, ha ii imaanina. soomaali ma rabo, daarood ma rabo baan dhihi lahaa, laakiin albaabkii baan u furayaa. dadkii soo dhawaadaan leeyahay, haddana afkoodii baan xirayaa, haddana waa la dilayaa, haddana askartii baa dilaysa. so waxa weye wax laga xishoodo weeye. marka waa dalka dibadiisii, soo maha? dalka dibadiisii. dalka gudihiisa midda ka daran mataqaana. annagu haddaanu dumarnahay, horta dharkaan qofkii yaqaanow, soomaalida dharka gudguduudka mingiska iska leh. ninka maanta soo dhigeeyay ee magaaladan bulinka ku haysta, saybal bulinka ku haysta, ee magaaladan baallaha ka rifa, ee dadkeeda baallaha ka rifa, ee dadkeeda abiyuusa, ee dadkeeda dulma, ee dumarka raba in ay meelahay ku mataqaanaayeeto enjoy gareeyaan iyo meelahay aadaan. sow nimanka shifadaba dadka way daaweeyaan. sow qofkii ama wax kale ku daaweynaya, ama wax kale ku waxaynaya, ama meeshay rabaan ay fan kusoo qaadanayaan. ninka maraykan ku nool ee raba inuu gabdhaha soomaaliyeed meelahay ku enjoy gareeyaan, ama ragga soomaaliyeed qofkii raba meeluhu ku enjoy gareeyo dadka ku maagaya, waa cabdixakiin. markuu qolo ka degaba qolu ku suladan yahay, qolo markuu ka degaba qolu ku suladan yahay, qolo markuu cunaba qolu raba inuu cuno. wiilka yarka ah ee aad cayrsanaysid, ee aad social mediaha soo saaraysid, ee aad masawiradiisa soo saaraysid, ee aad leedahay mataqaanaayeeto lacag isii, ee aad leedahay kan isii, ee aad leedahay saanan ku yeelaya, horta ma yeeli kartid. ma yeeli kartid. dumarka adiga Minneapolis ku nool waa adigii inta soo istaaga dabcasar xafladiisii lahaa, qofkii halkaas soo istaaga, naagtii halkaas timaada saasaa loo galayaa, waa adigii lahaaye yaa, oo gabdhaha u dhaaranaye, oo meel walbaa tagtid gabdhaha isku dhadhajinaye, oo intaa gabdhaha isku masawiraye yaa. maxaa gabdhahii asagu u taga iyo gabdhuhu asagu wato maxaa ku daba dhigay? maxaadse cunugan yarkaayaad dhali kartid, da' walba la fil baa tahay, maxaa ku daba dhigay? inaadse qof saybal bulin ku samaynaysid ma ahan. inaad magaalada Minneapolis miyir iyo deganaan ku joogto lagama yaabana miya? magaaladan in badan baanu deganaan jirnay. dadka caruurahoodii baad 24 saac social mediaha soo saaraysaa. stop. caruuraha meesha laga dhalo ma taqaanid. sow ilmaha meesha laga dhalo waa meel xanuun badan. sow wiilka yarka oo aad dhali kartid oo ilmahaaga la filka mataqaanaayeeto ilmahaaga la fil ahaan lahaa, haddaadan adigu curanin inaad ku saqajaantid waa laga fiican yahay. maalin walbana inaad ama gabar ka laalaadid, ama hooyo ka laalaadid, ama wiil yar ka laalaadid waa lagaaga fiican yahay. sow magaaladan idabdarrada aad la joogtid iyo anshaxumada aad la joogtid, wax kaaga xishoonaya iyo wax kaaga baqaaya ma lahan. qolaa hadda ku jaaj garaysay, haddeeraad maxkamad leedaha. shalay baad aniga maxkamad ila lahayd oo kaaga soo raayay, oo intaas aad idulmaysid, oo caruuraha yaga bannaanka soo dhigaysay. kaad maanta soo dhigaysidna waa wiilkaygii. kaad maanta soo dhigaysidna haddaad adigu dhoohana tahay waa wiilkaygii. sow wiil yar oo dhallinyaraa oo ilmahayga leeg waa wiilkayga. sow qof kasta oo Minnesota jooga ma adaa depression ku ridaaya? ma adaa stress ku ridaaya? ma adaa waalaaya? sow qaladka adigu aad ku jirtid iyo dhibaatada adigu aad ku jirtid iyo waxa adigu aad waxaynaysid iyo daraaga adigu aad cunaysid iyo waxa adigu walaaqaysid adigu lama arkaan miya? midda dadka kala waxaynayana waa la arkaan miya? gabdhaha aad leedahay kaamiraan hor dhiganaya, carwir haddaad nin raga tahay kaamira hor dhigo. carwir haddaad nin raga tahay meeshiisa aad. carwir haddaad tahay ninkaas mataqaanaa wiilkaa ergika dhalinyarada faraha ka qaadin.
magaaladan kud soo kuday baad ku noqota 24 saac umada Minneapolis joogta kud soo kuray reer Minneapolisna waxaad ka baqdaan iyo waxaad ka baalkeysaan baan garanaynin waxa ninkaan aan uga baqaysaan baan garanaynin ninkaan waxa looga baqaayo ninkaan ya maskiinka ah ee meesha fadhiya ya ee shalay xabada ee mooska bariyay ee wadankan inta lagu caawiyay halkaas gaariga la saaray ee umadii magaalada kud soo baxay ee naagaha Isbaanishka ah ee barfuunada soo xada barfuunka ka gadaaya ee magaaladan dhibaatada ku haya ee magaaladan cyber bullying ku haya ee aad kulligiin ka wada baqaysaan aniga mooyaane iyo gabadhii iska celisay mooyaane intiina kale aad ka wada baqaysaan rag ha ahaado dumar ha ahaado ee qof walba raba inuu Facebook cyber bullying uga sameeyo waxa Minneapolis ay ninkan aad uga baqaysaan ya waa Cabdixakiin kee weeye ma in laga baqayaad moodi waa Cabdixakiin waa madax iyo calool baalaha laga rifaaya meeshan waxaan ka baqa malaano ilaahay mooyaane ninkan dumarka iyo caruurtooda ha u daayo dumarka iyo caruurahooda ha u daayo caruuraha yagaan civil work aan kala nimid caruuraha yagaan anagoo victim aan dhalnay caruuraha yagaan aan ku soo daalnay inuu social media soo saaro xaq kuma helaaye caruuraha yararka faraha ka qaad ana hadda qaba waa kana dirci mingiska waa kana dirci mingiska guduudan waa kana shaalkii mingiska waa tana garbasaartii mingiska waa kana faraantigii mingiska maxaad qaadi kartaa ma mingiska aad u ka talisaa ya baha baha hey warho ya baha baha ya baha baha hey warho ya bihina caliyey bam bam baan ku leenahay ma mingiska aad ugu diidi kartaa baalaha laga rifaya mingiskana ma taaban kartid waa traditional anaga tumanayna oo anaga tagaaya oo anaga ciyaarayna oo anaga ku baashaalayna naarayo business waxaad mingiska u ceyrsanaysidna waa kugu gardaro qola aan traditional lahayn Mareykanku xataa traditional buu leeyahay dadka afaarada internahooda warya nooga bax hanagu faragelinine maxaa gabdhaha ku daba dhigay naagtii tagta waa sawiraya naagtii tagta waa aadaya maxaa ku daba dhigay gabdhaha state of Minnesota aad ku nooshahay dumarka jooga leave me alone way ka dhiciyeen ilmay dhaleen baqdintaaday u dhaleen laakiin reasonkay kaaga baqayaan baan garanin tii dhilowda xataa way dhacdaa bay ku leedahay ma aha inaad gabdhaha biiqsi aad ku ceysatid ma aha inaad wiilasha yararka ku biiqsatid ma aha inaad dhalinyarada yararka ceysatid caruurta yararka dhalinyarada yararka oo aad dhali karto hoos u baxayo ma sanadkaas sheeganaysid ma aadan dhalanin anigii adigu isku mid baynu nahay adna ma dhalin sanadkan sheeganay ma dhalin laakiin anigu da'deedu rasmiga baan sheegtaa waxa da'diisa ka carraaya maalin walba qadaadka xiiranaya waa adiga da walba la filkana iska dhigaya ninkan wax dhalayna umada ka qabsan maayaan ya laakiin sharciga America dadka ka qaban doona laakiin waxaan ku sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeed meelaha ay ku baashaalaan aroos kaaga harimayaan soo mingis kaaga tagi maayaan soo meel ay ku ciyaaraan kaaga harimayaan soo kalaabtii aada kaaga tagi mayso soo inaad gabdhaha baalaha aad ka rifaysid aad gabdhaha iska deysid wax ka xishoonaya wax aad ka xishoonaysid ma jiraan wax ka xishoonayana ma lahan reer Minneapolis baan sheegaya reer Minneapolis ninkan aad ka baqaysaan wuxuu yahay ma lahan waa la jaaj gareeyay dadkii uu maago aniga hayla soo xiriireen saasaa wadnuhu idiin wada bislaaday sidoo ilaa qiyaamo idiin ceyrsanayay saasaa wadnuhu idiin bislaaday baalaha laga rifayaa sharciga dowladda idinka qabanaya state of Minnesota kaarka caafimaadku dadka siiya maxaa kaarka caafimaadka iyo daawadiisba dadka ku taraysaa ninkaana halkaan u fadhiyo hameen walba hartaa ku ridaaye why 24 saac chat buu cunaya 24 saac shiishu cabaya 24 saac war buu duubaya 24 saac dad buu Facebook mataqaana Facebookyadooda u dhacaya wariya leave me alone dadka iska daa waxa dadka ka qaaday mingiska soo ma ahan annaga tumanna mingiska waxaad ka qaadaysay waxaan ka baqaynana ma lahan ya baha baha hey warho ya baha baha ya baha baha hey warho ya bihina cali ya laga baqayaa mingiska ilaa qiyaama la tumi jiray mingiska ya looga baqayaa ma afarta wadaada gardheerayaasha mingiska looga baqayaa mad mood freedom to speech weeye free country baan ku noolnahay nan adiga inaan kaaga baqayno mingiskay tumanayaan reemahay qaadanayaan kalaabkay tagayaan quraankay dhiganayaan diintay aadayaan masaajidkay galayaan sadaqaday baxsanayaan that's everybody hor businesskooda weeye community dhano wada saliim ana adduunka laga ma arag qolo walba meel bay ku mashquulsantaa maxaa gabdhaha mashquulkooda ku daba dhigay
iyo meelahay lacagooda ku bixiyaan iyo meelahay shilmadooda la aadaan waa adiga gabar walba u dhaaranaye so ninkaasoo baa magaalada xaaraan ku haysta xaaraan buu ku haystaa magaalada orodoo dacwood adiga dacwoon jiray bilaash ku dacwoon jiray so waxaa idiin sheegayaa magaaladan Minneapolis inaan ku noolaanaan rabnaa inaan ku noolaano inaan habi ku noqono inaan ku qosolno inaan ku farxno baan rabnaa anigu xafladaydii baa soo socota caanaa la igu shubayaa inta soo istaagto waxaa tiraahdaa cariyaa aadadhe orod dhehada yaa aada cariyaa aadadhe naa kaa biqi doonta Minneapolis naa walba koob xaaray kugu shubi doontaa Minneapolis naa kaa biqi doonta male burjigaan rabnaa inaan kaa rifno sow gabdhaha Minnesota ammaan sii oo meeshay aadaan ammaan sii oo dhalinyarada Minnesota ammaan sii oo caruurta Minnesota ammaan sii oo state of Minnesota ku noolnahay peace baan u baahannahay peace baan u baahannahay haddaad adigu peace rabinin yaa orodoo intaad medication qaadatid orodoo meel fariiso laakiin inaad baalaha ka riftid maalin walbaba qof ku salaatid maxaa ka rabtaa wiilka yarkaad dhali kartid waxaa dhaline ilaahan kuu bariyey kaasaa wax dhalaaya so waxa weeye meel walbaba horta nin baa qasaaya dab casar kuwa dilay waa rag yaa kow Minnesota kuwa qasaayana waa rag because dab casar ninka kaliya social media iiga heliyay buu ahaa my friend kaygii ka xumaha maanta aad baan u wareersanaha aad baan u daalanaha so waxa weeye waxa ku dhacay waan ka xumahay Somaliland dambaan taageerayana malahan xalayto maxaan ku waxaynay yaa naya kala ma bila picture tagnaya waxaan idin sheegayaa awal baan horta hal qabiili uusan noqon karinin dawlad hal qabiil dadka geesaha ka degan ama dadka wadanka la deganna awal bay waxba u ogoleen saddexdooda habrood baa isa soo sharaxi jiray dad badan oo waxaa jira Somaliland ah oo aad ii taageeraa jira ama ka xunba waxa maanta dhacay dadkii damiir leh wuu ka xun yahay dad Somaliland waxaan maanta ku hadlayay inta maqlay haddana si wanaagsan iyo karaamo iyo sharaf leh ila soo hadlayna waa jiraan dad qabyaalada DDT-ga ku duran tahayna waa jiraan anigu shalay markaan Puntland baalaha ka rifaayay oo aan laha gabdhay ka saanayeen gabdhay ku fsadeen soo anigu Puntland kama soo jeedo soo qurun iyo qashin baa idinka buuxa idinku runta ma sheegi taqaanaan annagu soo runta isu sheegnaa qofka dalkaagu hadduu khaldan yahay ama dadkaagu khaldan yahay yow soo waxa weeye askarta Somaliland baa ninkan dishay askarta Somaliland baa dishay soo shacabka Somaliland soo ma oran karaan annagu waa rabnay dab casar soo ma dhihi karaan yes soo kama hadli kartaan oo kama doodi kartaan yes soo idinka inta la idin rifo baalaha la idin kama rifi karo yes maxaa dhiigu idinku karayaayo isu cunaysaan sidii waxa jiin qaba so waxa sameyseen waa khalad so isaa qorin miyaa dilay askarta waxaa dishay madaxweynaha Somaliland ayagaa ku soo diray soo askarigu iskama imaanin soo waxa weeye macna male albaabaad noo furteen so Naciima indho maalinta idiintii saad u gasheen baan anigu ogaa maama milyuun ma noo timaadid maama milyuun markaa ilaahaydeen Naciima indha ay soo hor istaagta muxuu ahaa Naciima indha Soomaaliya magaceedii yes Nasra indha miyuu ahaa bay soo hor istaagta gabadha fanaanada ayadoo baalaha ka soo rifteen bay soo hor istaagta soo aniga iyo iyadu isku dhiig baan naha isku bileer baan naha soo maantana dab casar baaban ku quusta soo xataa inaad fiidiyodeeda dhageystaan ma jecli ha iga dhageysanina fiidiyodeeda gabdhaha Somaliland awal aad baan u jeclaan jiray laakiin inay banaan baxaan baan rabay maanta markii qof Mareykan ka yimid la dilay inay banaan baxaan oo xataa aad ka xumaataan waxay rag u sameynayaan inaad dumar ahaan u banaan baxdaan xataa oo aad dadkiina saxdaan ama inta dhalinyarada iyo dumarka iyo inta caqliga leh inay intay banaan baxaan ay dhahaan waxaas waa ka xunnahay bay ahayd soo waxa idin sheegayaa أنا وحنا دين ده ما قانو عايدين ده ما قانو ده كمرتدى وصية مرتدى دلية مرتدى قراعية مرتدى إني فلان ده وحبلا معهن سو وحس وعيب واحد سميسين لكن عيار وقلن دنبي ما أنت سندي بي هاي نستيح عنده ما شاء الله نستيح عنده ساعدوا قشين وقشت تشبسين بان آدو وحنا قاولي جي الله يوانك حما ساعدوا قشين
سو أنا ونستيح عنده كما متقعنا كما حمي متقعنا كما في عني عشان مرسين بعد أنا يمرين لهيدين إلى يوم اللي يقوم يسناي هيجين مال عن حركه هاي مويانه مال أنا اللي يقوم يسناي إلى هيجين هذا سومالي يتجاي مال اللي يقوم يسناي ربي وهيجين meel haddaan xornimo ku maraayan aan xornimo ku joogaayo yaa ma haddaan aanan ku maraynina meeshaan la iga jeceliyaan xornimada ku joogayaay meel aan baqaayo la leeyahay afkaaga iyo gacantaada la dhowraya ilaahu ha igeyni so waxaan rabaa kolay aniga Soomaaliland waa iga dhimatay askarteeda iga dhimatay dawladeeda iga dhimatay qabiilkooda iga dhintay dad nacaybkooda iga dhintay dhaqan xumadooda iga dhimatay bar qabiil hal magaalo ha noqdo wiilka yarkaayo fanaankaana sida loo galaayo hooyis loogu oohinayna waa arkay oo taqaano fanaanka baalaha looga rifaayay oo aad u galeysayna waa arkay so anuu kulay idima soo socdo waxaad gumaysataan Allah idin sahlo naag daaro Ismaaciil aan ahay Jubbaland baan haddaan rabo aadaya Puntland baan haddaan rabo aadaya kililka shanaad baan rabo haddaan rabo aadaya Kenya aadaya 100 meelood oo aadi karoon xorriyo ku noqon karoon saas u laafiyoonaya iga horeysa meel afkayga iyo ishayda iyo gacantayda la dhowraayo oo askari xuna waqaafa inta la igu soo diro diyuuskan xunka aayaday askari xuna waqaafa inta la igu soo diro baalaha la iga rifa Ilaahay baa idinka magan gala so dadkan wada yaacaydaana waa idinka digaya Soomaaliland wax jirta maahan qabiilland weeye yaa nimankaas isaaq ee halkaas ku urursaday ee dadkii la deganaaba u diiday inay dalka wax ka siiyaan ee dawladda wax ka siiyaan ee sharciga wax ka siiyaan u diiday dadkiinaan iska wada yaacay nimankaas Soomaali diidka meeshay la aadayaan labada magaalo meeshay doonaan ha la aadeeni Soomaalideena kale waxaan u sheegayaa ha loo daayo go'doon ha laga dhigo yan gabdhahoodana la guursan raggoodana yaan la guursan hadday idin sheegtaanna yaan la sheegan erago-aanna ha laga dhigo inta saddexda magaala maahan inta kalena ha laga goosto intaas ha lagu ekaysiiyo Boorama iyo halkaasna dhinaca inta loo wareejiyo Itoobiya halkaas inta la mariyo Soomaaliya halkaas kala xiriirto so nimankaas erago-aan ha laga dhigo qoro walba erago-aan ka dhiga markaas ay saaxiga keeni doonaan barbarka badda bahalki barbarana ha ka cabeen Hargeysa Burcana ha ka shaqaysteen so xoolahoodana ayagu ha maalin xoolana ha gateen xoolaha yaan la loo diido yaan loo keenin yaan ma taqaanaayay ta ganacsi loo keenin hala go'doomiyo afarta gees daarood ba idinka xiga haddii la idin go'doomiyo wallahi inaan shilin idin imaadeen shilin inuusan idin imaadan dadkaan idin ma yaqaanaan dalkana ma yaqaanaan anagu dalkaan taaka waqaana so waxaan rabaa inaan idin sheego niman yow Soomaaliland la yiraahdo dhaqan xumada iska daayi dad nacaybkana iska daayi martidana aad dilaysaana martida iska daayi ceeb weeyaan martida iska daayi ceeb weeye martida in la dilo qofka marti hadduu ku yahay 2 bari 3 bari bil week 2 week buu kula jooglay uuna ka soo tagi lahaa laakiin ina inta dhuumatid indhaha mara saaratid yaa fiidiyowgii lagu guubaabinayay dab casr dilkiisi maanta YouTube-da waa laga saara ana available buu ahaa way looga saara shalab waa soo gelinayseen so waxa weeye dab casar daarood ka badan dab casar kaliyana ma aha laakiin dab casar 100 nin buu u dhigmaa maantana waa idin sheego 100 nin buu dab casar u dhigmaa so intaas waxa ka hadlaya sheekada dab casar Ilaahay waxaan uga bariyaa Ilaahay inuu caafiyo dab casar Ilaahay waxaan uga bariyaa Ilaahay inuu daayo dab casar Ilaahay waxaan ka baqayaa gacan xaq daran inuu Ilaahay uga dhigo dab casar kuwii dilay Ilaahay gacmaha inuu ka qalajiyaan Ilaahay u weydiinayaa kuwa soo diray Ilaahay indhaha inuu ka tuuraan Ilaahay u weydiinayaa dab casar Ilaahay waxaan uga baryayaa gacan ka xaq daran in Ilaahay uga dhigo gacantii ka xaq darnaydoo dishay so kuwa dambo aadi doonowna ku quusta qudquutay ku quusto yaa qudquutoy ku quuso daaroodka dooni mayna dooradiisa doo xageeya daadku ha qaadee dangerous waxaan caaw u huwanahay 2 arrimood mid waa astaamaha mingiska oo ninka gabdhaha iyo wiilka yarkaayo mingisyada taqaana uu ku caayayo ku eedaynayo ku bahalkeenayo mingiska adeer anagaaba tumanna maxaa ku soo haray Cabdi Xakiin yaa mingis ma laga tumay adiga yes or no Cabdi Xakiin mingis ma laga cuudiyay inta lagu kaxeeyay guriga jaranjarada leh intaad gaariga meesha jaranjarada laabkeeda dhigatay dabada ma ku suqday oo ma fuushay gurigaas yes or no guriga 5ka ku yaala iyo Franklin ku yaala ma gasho
ما أنت وحلا قرنا يا ملهاني دبقات ما لقوه قلي هنا هذا الماء هم بررزي أرق ماها هذا حيبته والله وضع قلي حيبته والله وضع قلي لكن هذا كاشد انتهى حتى قبضي كوجيسي كوجيسي مقعدان كينايا on soo dhigaya halkaas ayadoon dambi ma ay gelinin laakiin adaa yiri iigi marka wixii adigu aad shala soo samaysay dabqaadkii adigu aad soo sawiratay oo lagaaga sameeyay inaad dadka ku caydid afka inta soo tirtiratid isaa caqli guriga 5ka iyo ku yaala Franklin yaa apartmentiga ah saas loo fuulo jaranjarada maad aadin ma lagaaga cuudin dad baa waliba igu raranoo mtaqaanaa tasaana baalk stress ba en dabqaad hal galiya maad aran marna dabqaadka gashada marna dadku caaya marna cuudkii jaawaha gashada oo hal ugu cuudiyo marna dadka caaya waxaan ku sheegayaa shala meeshaad gashay timekii iyo gaariga bartaad dhigatay iyo sidaas jaranjarada u fuushay baad guriga kale inta fuuli weyda aad gurigaasaan fuuli karaa aad tiri eed rafaado jaranjada rafaadkaada waa ku fuushay intaba historygaaga anaa halkaan soo dhigaya laakiin waxaad ka heshid waxba dadkaa ka siinin waxba dadka shaara usoo gashanin laakiin maxaa kuu sheegaa kan ma ujeedaa kii mingiska aniga la iiga tumay weeye kii garaada iga goosan lahaa iga goosto so maxaan kuu sheegayaa yabaha baha waro yabaha baha waro yabihina caliye geedkan dad baa iska leh dadkii iska lahaa baad ku haysataa ood ku qabsanaysaa ya mamowidaaye amiir mamowidaaye akhalomowida dadkii waxaa iska lahaa maxaa ka rabtaa dadka jimankoodii iyo insiyadoodii iyo sheekooyinkooda adiguba waa adigii shalay ordaayay maxaad ugu aadi shalayto maxaa u aadi maxaa lagaaga tuma maxaa lagaaga cuudiyo sheeg so inaad dadka ku caydi wixii adiga lagaa sameeyey in lagaa baqaya u qabtaa soo maaha ma lagaa baqaya baalaha lagaa rifaaya so 5ka iyo Franklin ya taqaana sama guriga ku yaala sama taqaanid yes taad meesha yartaayoo laabka dhigatay gaariga yaa lagu qaado halkaas lagu saaray oo aad fuushay meesha waliba gadaale lagaa soo geliyey yaa gadaal inta lagaa soo geliyey asoo gurguuratay fararakh oo soo fuushay ma ilowdi hadda waa meeshii hadda waa maalintii hadda waa kii waxaa tahay shaar cad ii soo xiro oo dadka ku cay waxa adigu shalay wixii shalay adigu aad soo samayso dadka ku cay yaa wixii shalay adiga lagugu soo sameeyey baa dad ku caayaysaa so caruurta yararkaa faraha ka qaad wax ka baqaya meeshaan freedom waa free country qofku wuxuu doonuu samayn karaa nan adiga in lagaa baqaayo nan adiga in laguu daynaayo nan adiga in lagaaga xishoonayo adigaba waad samaysaa yaa iska gadaysay marka haddii masaajidyada cid loogu diidayo adaa lagugu diidaya sawadaa soo galay so bye so waxaan kuu sheegayaa intaasaa rabaa inaa idinka tago caawa wiilka yarka ah ee social media saaraysid anaa kuu sheegaya dadka dulmanayaasha anaa u heliya dadka ayagoon wax xun samayn aad wax xun aad ku eedeynaysidna annagaa kaala hadlayna adeer wax fiican buu ka dhigaya waxaasa okay so waxaan idiin sheegayaa mataqaanaa MMS geesiyad weeye MMS waa gabar daarood waa gabar kablalax waa gabar majeerteen you think so inaa idinka baqaayo idinka you think so inaa magac idinka baryaayo
you think so inaan magac maskiin ka ahay haweeyaan afna maskiin kamiyi magacna maskiin kamiyihi laakiin wixii edabta daran wadanka in laga qabto dalkii edab daranna dalalka in laga qabto waa waajib wixii edab daranna dalka ha laga qabto qofkii edab daranna ha laga qabto dalka ha laga qabto yaa marka asxaabey waxaa idiin sheegayaa been waa dhammaata waxaan idiin sheegayaa been waa dhammaata maalin walbaba in social mediaha intuu nin soo fariisto caruuraha yararkaa ku caayo oo masawiradooda kusoo guro oo iskala fildhigo da' walba intuu jeegada xiirto ma suurtoobayso jeegada intuu qadaadka xiirto inuu ku waxeeyo dadku ma aha afsiille dadku ma ahan isagaad baallaha ka riftaa dadkana kusoo dirtaa gabdhaha yararkaana hoostees baad u qabsataa maskaxdaad ka haysataa soo waxa weeye dadka Minneapolis ku nool waxay u baahan yihiin especially dumarka Minneapolis ku nool iyo caruurahoodu freedom bay u baahan yihiin inay xorriye helaan bay u baahan yihiin in annaga iyo caruuraha iyaguba dalkan waxaan u nimid inaan ku kifaaxno inaan cidnana dhibin inaan shaqaysano inaan wax baranno inaan qabowno inaan qabowno inaan degno inaan ku qabow baan rabnaa pagekaygaan anaa iskala soo ogtihiin MMS waa MMS yaa MMS horta ma taqaanaan MMS soo adiga iska soo galaya sidii daadkii xaabaale dalaqle dab dhulka idinka dhaq ku hayo soo galaya meeshaan MMS idaa meeshaan iskale MMS qofkaan doonaynin oo dibadaha ka joog dalka ha soo geli meeshaan ana ii xiran taha so MMS geesiyad weeye MMS beautiful weeye MMS she never stop inay stop garaynayso inay dadka caawiso MMS dulman hay caawisaa qofkii dulman oo laga gardaran yahay waan caawinayaa anaa hadda idiin sheegaya Soomaali dulmi baa inaga soo haray qof kasta inagaa dulanna inagaa dadkeena cayna inagaa dadkeena dulanna inagaa dadkeena dilna inagaa dalkeena maagna inagaa dadkeena xumayna mana ka qabataan laakiin MMS wixii dad dulma haddaad u qabtaan in anuu ka baqahayo ninkan 24 saac ummadda dulmaaya oo ummadda caynaya oo ummadda maagaya ma laga baqayo ninkan ma laga baqayo ummadda baalaha inuu ka rifo inay gabdhuhu ay ka baqaan no kaaga baqmayaan gabdho moolka carabka karameel iskalena waaba u tagayaaba anaaba raba inaan toos ugu tago because gabdhaha ku nool Minnesota ee ka adeegta way dulman yihiin ee ka adeegta ilaahay ogama baqaan siday ninka uga baqaan qol jeeraan la hadalnay oo aan iri ilaahay mooyaane aadanaha ka baqinina gabar walba ilaahay mooyaane aadanaha ka baqin boqol jeeraan idin la hadlay waxaad uga baqdaan ma garanayo ninkan social media buu idin soo saaraya anaa idin jooga annagaa ka hadlayna waa taqaanaa ninka ma nin kala jira madax iyo caloole ma nin kala jira ma nin kale gabdhaha Minnesota maaga jira ma nin kale dadka ma taqaanaa wadankan cyberbullying ku sameeyaa jira ma nin kale dadka gabdhaha baalaha ka rifaa jira ma jiro nin kale oo gabdhaha cyberbullying ku sameeya ma jiro so asagaa gabdhaha cyberbullying ku sameeya asagaa dhalinyarada cyberbullying ku sameeya asagaa dadka la haysta u noqda kuwa anaga shalayto intaqaanaayo halkan ku jiray oo gabdhahaasoo caruurahooda uu soo caawin jiray yaa uu caruurahooda soo caayi jiray baa isaga ka daba ordaaya oo hoos u wacanaya so gabar walba suu caayay u hoggaansamaysaa so waxa weeye dulmiga la iska daayo wiilka yarkaayo ku mashquulsan yahayna anaa ku mashquulaya asaga anaa ku mashquulaya Minnesota ama nabad baan ku wada joogaynaa ama edabdaradiisa adduunka dawladdaana wada arkaysa dadka masaakiinta ah ee dulman ee Minnesota ku nool
inay uga cararayaan asaga no state of Minnesota nabad baan rabnaa inaan ku noolaano yaa nabad baan rabnaa inaan ku noolaano inay gabar baqda ma rabno inuu wiil dhalinyaraa baqa ma rabo inuu qofka nin ganacsadaa baqa ma rabo ganacsadii baa baqaysa oo waxaa baqaysa nimankii mataqaanaa dumarkii baa baqaya oo waxaa baqaya carruur dhalinyaradii baa baqaysa oo waxaa qof walba wuxuu ku leeyahay kaas ay caayaya so why muxuu ismooday markuu caayaya dadka muxuu ismooday markuu dadka caayaya muxuu ismooday markuu dadka maagayo calaa ayati xaal intaasaan rabaa maanta inaan idinka tago dabcasar ha loo duceeyo 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 dabcasar gacanka xaq daran baa dishay ha loo duceeyo kollay Monday haddii waagu noo bariyo waxaanu qaban lahayn waa noo taalla shaqaa noo taalla laakiin dabcasar ha loo duceeyo dabcasar waa u kacaynaa waana u istaagaynaa waana caawinaynaa insha allah biidni illaahi alkariim hiiliyahooba waa ku caawinaynaa so daarood shala waa hurday laakiin maanta wuu toosaya walla in badan baan xishoonnay oo social mediaha weliba aad baan uga xishoonnaa social mediaha aad baan uga xishoonnaa daan daaroodna waa xishoonnaa aad baan u xishoonnaa daarood reerkaas madax iyo calool ka dhashay waa ugu dhib badan inta kale waa xishootaa so waxaa idiin sheegayaa ayagana midhaasida kuwaas isaga celinayeen bay magaageen baa laga yaabaa anyway daarood in badan baanu xishoonnay oo wax walba nalagu sameeyey social media qabyaalada iyo waxaas waa ka xishoonnaa waxaan iska dhignaa dad dimuqraadis ahoo dadka iska aruursadaan iska dhignaa laakiin sheekadu way dhaaftay maradu waxaan waa ceeb weeye waxyaalaha qaarkood waa inaan garbasaarada tuura haadadadada tuura okiyaaladasi waa inaan dhahnaa waa inaan gabsaaraha annaga dumarkaa tuurnaa soo ragga iyaga xishoodkii baa ka batay markaasaa maalin walbaba nin la iska jiidanaya la iska dilaya waxaasuna ma suurtoobayaan waa ceeb xataa social mediaha haddii maanta oo dhan nin daarooda lagu caayaayo yaa ma kacno ma ka hadalno iska dayna waxaan dhahnaa macna malasaa gardar madhaha la iska dilo haddaad ninka qabiil kalaa wax ka sheegtid wax naaga ordahayo cidii car wir naagta ragaa kaa soo fariisto oo soo caytanto kulligiin o dhan idinka wada afdheer baallahan saa idinka wada rifaya saa usoo wada yaaca camaasiir yahay annagu haddaan naaga nahay sow qof kastoo dulman wiilka naag baa dhashay waa inaan wiilasha u hilinaa wiilkii dulman waa u hilinaynaa wax kugu soo yaacayaan baalaa idinku soo yaacday hanagu soo yaacinina soo waxaa idiin sheegaya dabcasar annagaa u hilinayna annagaa dumarka keliyaaba ku filanba afkaygaaba ku filanba dabcasar anaaba afkayga ugu hilinayaba afkayga iyo gacantayda iyo caqligayga iyo xoogayga intaba dabcasar waa ugu hilinaya somalilandna sharaftaba anaa ka qaadaya intii xataa usoo dhowaan lahayd wax yar in la ogolaado iyo anaa hadda ka tuuraayo karaamadii o dhan annagaa ka tuurayna hadda asamaato ha la helo inaysan weligood la aqoonsanin soo waa dhammaata no more in somaliland lagu oranayo isaaqland baa tihiin soo waxaa idiin sheegaya waxaan aqsanaha soo dabcasar baa la taabta dabcasar ninkii halkaas soo fariistay social media ii hiiliyey subscribe iigu sameeya waxay dheheen ha lacag bay ku raadinaysaa subscribe saa wadaadadii wada subscribe ii sameeya lahabu soo saara ninkii ii hiiliyey soo maaha shalayto dabcasar kulligiina idinka wada fiicnaayo ii hiiliya kaa iisoo istaagay soo maaha asagaa idinka wada jeclaha soo geesi buu ahaa ii hiiliyey soo waxaa idiin sheegaya dabcasar he is my blood he is my in adeerkay he is my walaalkay isku meel baan ka nimi isku magaalaan ka nimi social mediahan daris ku naha so waxaa idiin sheegaya ka xumaha ana ka xumaha dabcasar ku dhacay waa ka xumaha ana ka xumaha somaliland iyo annaga inoo taallaa baalaha inaa idinka rifa casar iyo cisho iyo fiid iyo galabba waa ogaan doontaan inaa halkaas shaqo idinka idinka dhigto xalay snapchatkayga waxaan saarayay somaliland baan saarayay calanka somaliland baan lahaa ilaa waa somaliland isla xalayba dilaysay dabcasar dishay way ciil badana saan idinku kaba gashin jiray ha somaliland hala dhaho saan u liin jiray istaaqland nomor somaliland ma tiidin isaaq baa tihiin so waxaa idiin sheegayaa ku kacsanaha aad baa idinku kacsanaha baalahan idinka rifaaya iyo doorka ku kacsanaha iyo door waa idinku kacsanaha baalahan idinka rifaaya iyo door so
توعي تمي لهايدين هاي ها أبرونتين حاجة أنت إذا بدرنا نورده عايدين شيء جاية مركب نحن مريك كتير تقعتين بدريسة وايد شيء إنك أمريكان سرسن كا واي حاول شيء سنكا صيع عناي عيل سنكا يركب عناي عيل كان يدور قبه هركيسنا أقوي ما هركيسة يدين كوي ماذا عماسير باتين وقرد عقلا صبح لايدين توقيها مريارة في بدأ بعصر يس وحاس قروح بدن بعد دارود كدشة وقريشتا عرب بانها خاقان ما أنت ما هلا خاقان وأنها بريونسة محو خاقان ما أنت أهلوا إنها بريونسة ويانا هبريونس ما أنت يقوسيانو كرسي قاضي كدعين بان أركين إنان هبر والبلايا صوده مرة قلبي إن فيشه فضرب هبر أول كودنا ما نقانه reer galbeed faa'iidaha ka sugan halkaaba haday bari aysan aadaynin iyo burcaha iyo halkaas hadaysan aadaynin oo galbeed soo jiraan caaqaba ma lahan qadiyad baa ka buuxda waa qashin anagu hooyaha Brionis baan hayde xagga kalena waan ka xanaaqsanahay naga qaadeen kursiga marka xagga kale daaroodnimada fiiriyana daba casar waa nin daaroodnimo aan heelinaya labada dhinacba waan idin ka ciil qabay ninkaas inuu wax fiican soo wadina anagoo waa arkayn dulmiga dawlad maahana waa dulmi ninkii Soomaalida isku wadi lahaayay Soomaalinimada raday askarigan esta ku qufulan tahay esta yuu ka bartay awr esta SDF baad ka barateen ama SBA taqaanay jaayliin yahay awriyaga qabiyaalad badana qabiyaalad shicala qabiil dhan oo dad wada qabiil saasa ugu taagan yahay Harlan يدورلان خبر حبوشيلان هذا أمان ليدهن ملهن أمان تاليد كبدية قرن كينية صومال العيب كينا أول ذاتك صوكري ديق ميرتي هاي توقته أفرت الجيز ذاتك كتير أيقا لقي آد بعد حنتهين قبيل كينية قرن كينية بلايد إذن كب حدية صومال العيب كينا ولا إذا كحشون هاي كل قوضا ذاتك أروح قوضا راح يسنيان الله محيط عليهن مكان إساق بالله كرفه Soomaalida dhan way idin nacibtahay moogta aad baa leedin nacibiyaha bari waagu markuu ii bariyana waxaan wacayaa wiilkii yarkaad raabtiga u haydeenad ku faraxumayseen magaaladeeni hadda markii dambana aad ku caydeen Queen Salena gabadha dartiin u noqday baan wacayaa waan leeyahay kulligood baa garoonkooda soo wada dhig iyo caruuraha wada fuuleen iyo wasiiradooda caruuraha wada Charles Malester ka oo dhan magaceedin liiskiina intaan saa u qoran saas Facebook-da idinku soo dhajinaya markaas baalaha la idinka rifaya waad ogaan doontaan waxa ceeb idinka raacda alla dab casar maxaad eedi doontaan diliinka disheen markaan arko Queen Salena markaan arkaan reerahaas ka xanaaqi jira awalba habartii maamulin hayd baa daba ordaysa muxuu isaga goyn waayay hadaa khalkhaliseen muxuu isaga goyn waayay baalaha ka rateen asagoo daba jira oo soo xumayseen idinka baabi'iyay markaas haddana leeyihiin waa faqash ما شاء الله قروح ذي دوريارة مرقان لان شاد لان قرى شاد لان مرقان لان شال ملستر لان يدور لان ساق لان كرفة بالها عر بيج كيف انت تمادان عيلة صافريست فدريها أحكي لما يشاء ما فرديه كي أتبدرن بينك كتوران ربا
balaayadan dhibka badan xataa shidada badan isaaq buu dhibka ka keena hooyadiis buu ka keena ninkan lahaa caanaha laga bulc siinayana abtigiisu ahaa isaaq buuna ahaa hooyadiis la dhashay tuu u tagay hawiye wuxuu ku yiri haa hawiye waa haan caana ku jiraano oo fur la buu yiri balaq furki daarood baa kala tagay buu yiri balaq bay ka siinayaan markaas hawiye xabad ku dhufta asaguna abtigiisu ka keenay dabdarada madaxii calool taw kaala habaarka ugu dhaciya habrahaaga ma aqaan maanta hore isaaq haddaan caayaya ma soo caytamayaan waxa soo caytamaya ma taqaanaa areer adeerkay isaaq waa gob soo caytami maayaan abaaba iga xishoonayaan aniga marka waxaan xishoonin waa ayo ciidamadii madax iyo calool kuway caayaya calaa ayati xaal jecliya wardheero la joogo jecliya nyada laga sheega jecliya nimco aadan warba suga naagtanaan soo qabtee nimco aadan naayaa yaa ku baray haddaadan adigu ahayn magacaad sheegaysa naayaa ku baray haddaadan adigu ahayn Viva MMS naay MMS ma gartidey miyirlay ka tag meesha miyirlay nimco aadan waa baloogareeyay already waa tuura skivada waa tuura calaa ayati xaal intaasaan rabaa inaan idinka tago maantayto nimankaasna baallahan ka rifay madax iyo caloolna baallahan ka rifay kulligooduna baallahan ka rifay wiilka yarkaayo baallaha ka rifay ayuu leeyahay meeshaadan kaamiro kula hor istaagayaana waxaad kaamiro la hor istaagi kartid ma lahan gabdhahana yaa ta tagtaan say tahay u baashaala annagaa kaamiro la ag istaagayna meeshuu leeyahay kaamiradan la ag istaagaynaay annagaa asaga iyo wuxuu wataba kaamiro indhaha kala soo dhacayne yaa intaad qaataan baashaana idin been buu sheegay baashaana idin leeyaha been buu sheegay baashaala laqotome xaar laqotome been buu sheegay intaasaa rabaa inaa idinka tago waa idin salaamayaa dhammaantiin meel kastaad ku nooshiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu